جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله. سورة داس دوشي سكو أخريه النبي دوشي سا إلى لقى قال آيات داس فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا مركا هلك أمرايو أيو نبي قول حسبك الآن هذا قرآن كهلك أن ربيع الجارسيسي انت أسا فلنا جوجب النبي قول عليه الصلاة والسلام وهكو فلاتا انتاس لأن صحابي وحول النبي أيان حقي صدى موضي وابا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بدي صائن دون ماركتان إلا انتو أيكد هذا نيسو إنكم أنت القرآن كوان مغلينا وعدي كوان مغلينا لكن اسبدل كي ويرجع آيات قرآن النبي محمد عليه الصلاة والسلام دوشي سلبو جوجي آية النبي محمد ولا إلمي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد حالك سيديبو أهان دونا مالك قيامها مركان أمد والبآن كينو أيضا يا نبي قيدي أو مرقا كفرا يأينو دينتي رسالة دي وقارسيي أدقنا مرخاتي أنكو سو جوجينو حالا آدكم مرق فوري دونتو أمد دادينا دينتي أدقارسيسي أن نبينا عليه الصلاة والسلام قرآن كأيو تدبر أيه قرآن كأيو كفكر أيه قرآن كمركو آخر سنة ينا أو يجري وعائشة رضي الله عنها وأتيت لصلاة الليل كمركو نبي قلت كان أيو ركعت كلي ونبي قلت كان أيه سورة البقرة يا آل عمران يا سورة النساء رجوع ديريديسا أيا نبي والله سوء برريين لأن مركب يكتر لما تصنع هذا يا رسول الله يا رسول الله محاسد النفط هذا أدوك كلفيسا إلى هاي أديك معصوم بكاد ودم بيجي هرنا وكاد عفكير دمنا وكا إلاليه مركب النبي يقول جواب وحكيري أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا ميانا جعلين إن أنا هذا أنا قلنا أدون ربي يسكون شكرين أيكم مهنا قايا آيات كهل ليس إلهي تنزيه دي سهدو مرنا النبي إلهي بو نزها يي آيات كهل ليس مارك تاني جنة هدو دول مرنا جنة إلهي ويدي سنة يي آيات نارتا كهل ليس هدو النبي اسكر تاغنا نارتا أيو إلهي كم مغنقل يي آيات كهل ليس إلهي وينيجي سهدو مرنا إلهي بو نبي وينينا عليه الصلاة والسلام maalin maalmaha kamida salaadii subax ayaa la gaaray sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam aqaladiisu ku soo tukan jiray inako maanta salaada farad iyo sunnada waxaan la imanay ma aragtaan waa masaajidii aqaladani nasiib maxaan u yeelay salaada sunnada salaad sunna ah oo qofku tukada buu nabigu xadiis ku yiri salaadu qofku aqalkiisa ku tukanaya ayaa ugu fadli badan illa salaada faradka mooyaan salaada sunnayaasha sunnaha ugu fadli badan waa sunnaha lagu tukado xaafadaha faradka mooyaan faraa'idana masaajida loogu talagalay sunnadana waxa fadli badan sunnaha aqalka lagu tukanayo si aqalkii uu noqdo aqal masaajidka cilaaqo la leh da aqalka salaada lagu dhex tukanayo oo quraanka lagu dhex akhrisanayo oo dadka aqalka jooga mar walba ilaahay ay aqalka ku dhex xasuusanayaan oo aakhirada ay aqalkooga ku dhex hadal haynayaan aqalkaasi wuxuu noqonayaa kal masjid laakiin aqaladii haddii aanan ilaahay lagu dhex xusaynin salaadna aan lagu dhex tukanaynin diinna aan lagu baranaynin waxau noqonayaa aqalkaasi qabri bannaanka dul yaaluu noqonayaa laa tajcaluu buyuutakum maqaabira aqaladiina qabuuraha ka dhigina buu nebigu yihi sal allahu alayh wasalam imaam atirmidi raxmatullaahi calayhi wuxuu yidhi aqalka haddaanan salaad lagu dhex tukanaynin salaadee laga wadaa markaa haweenkuna farad iyo sunnaba inay aqalada ku tukadaan baa u fadli badan raggana faraa'idana inay masaajida ku gutaan sunnaha ay tukanayaanna sunnaha ugu fadli badan buu nebigu yidhi waa kay aqalka dhexdiisa maaragtaan ay la tagayaan aqalka ku soo tukanayaan haddaan aqalka salaadba lagu dhex tukanaynin qur-aanna lagu dhex akhrisanaynin diinna aan lagu dhex baranaynin ilaahay tabaaraka wa tacaalana aan lagu dhex xasuusanaynin aqalkaasi wuxuu yidhi imaamkaasi waa qabri bannaanka dusheeda ka dhisan dadka ku dhex jirana waa dad dhintay la mid yihiin buu yidhi
meesha laga dhintaa laga noolaada ma aha jirkan dhimashadu runtu waa ta qalbiga weeyaan qalbiga marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sunnaha wuxuu ku soo tukanayaa aqaladiisa salaada faraa'idana wuxuu la iman jiray masaajidka dadna bilaal baa nabiga u tago ku yiri yaa rasuul allah salaadii baa taagan oo jamci way ku sugayaan markaa buu nabigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam isagoo indhihiisa ay lilmadu ka daadanayso meeshuu nabigu ku sujuudayana ay ilintu ay qoysay dadna markaa buu nabigu ku yiri yaa bilaal xalay toola aayadahan quraanka ayaa dusheeda ku soo degay waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar buu nabigu sallallahu alayhi wasallam aayadaha ninka akhriya ee aanan tadabburin ee aanan ka fikirin ee maskaxdiisa aanan ka shaqaysiinin uu hoogay buu nabigu uuna khasaaray qofkaas awaakhir suuratu ala imran samahayn أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار aayadahaas dusheeda ku soo degay buu nabigu xalay toolo yiri aayadahaas aayadu maxay ka waramayaan markaas inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layl wan nahar samaawaadka iyo araadinta abuurkooda iyo habeenka iyo maalinta isgadaal maraya isbedilaya iska xaynaya maalintii baa joogtay habeenkii baa imanaya maalintii baa tagaysa maalintii baa imanaysa habeenkii baa tagaya nolosha adduunka dhanba waa habeen iyo maalin isbedilaya bal wax u dhaxeeya sheeg wax saddexaad ma jira oo habeen iyo maalin hadday habeentaas aad u noolaan lahaydna nabi maxamed baa kuu jideeyey sallallahu alayhi wasallam hadday maalin ay tahayna saad maalinta u gudan lahayd aad noloshaada u gudan lahayd nabi maxamed baa kuu jideeyey dadna samaawaadkan eeg ilaahay dushaada uu dhigay oo dhulka eeg oo khalqiga samaawaadka lagu dhex abuuray fiiri dadna ilaahay xasuuso yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan ilaahay bay xusayaan iyakoo taagan iyaka oo fadhiya iyaka oo jiifa oo maxay leeyihiin rabbanaa maa khalaqta hada baatila ilaahu cirkan iyo dhulkan iyo khalqigan dheeldheel umaad abuuran bay leeyihiin subxaanaka ilaahu xumaan adaa ka hufan nuqsaan adiga ayaa ka hufan ee faqina cadaab annaar ilaahu cadaabka naarta naga dheeray oo naga badbaadi bay ku ducaysanayaan 24 saacadood ku soo maraysa bal saacad walba hal saaco saacadiiba hal mar ilaahayna xasuuso aakhiradana xasuuso waad noolaan meeshaad ka noolaanaysid qalbiga noqon ogow meesha dadku ay ka dhintaan ama ay ka noolaadeen waa qalbiga marka natadabbar waa inaan ilaahay xasuusanaa mar walba afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka maysan fiirinayn baa ilaahay leeyahay base qulubtooda ayaa qafilan oo qur-aanku muxuu ka warramayaa naba-u maa qablakum buu ka warramayaa waxalli wixii inaga horreeyey nebi aadan abuurkiisii ilaa joogadaada maanta adduunyada wixii dhacay buu qur-aanku ka warramayaa waalkhabaru maa bacdakum waxalli waxa adduunka inaga dambeeya dabadeed gadaasheenna iman doona ayuu qur-aanku ka warramayaa waalxukmu maa baynakum ininka dhexdiina buu nebigu leeyahay waxay aad xukun aad dhexdiinna uga baahnaydeen hadday tahay xaqa walaalka aad ku lahayd hadday tahay xaqa jaarkaaga aad ku lahayd hadday tahay xaqa aabbahaa kugu lahaa hadday tahay adigu xaqa waalidka aad ku lahayd hadday tahay mas-uulka raciyadda xaqa ay ku lahayd hadday tahay raciyadda mas-uulka xaqa uu ku lahaa qur-aankaa waxaasoo dhan ba ka warramaya huwa alfaslu laysa bilhazli waa fasl waa xukum ilaahay xaggiisa ka yimid kaftan qur-aanku dheeldheel ma galo akhriskiisii waa cibaado eegiddiisii waa cibaado
كدغنكيسي وعباده برشديسي وعباده برديسي وعباده فدينتيسي وعباده حكمكيسي وعباده من عمل به أجر نيكا قرآنك كو عمل فلا أجر با إلهي وقريا ومن حكم به عدل نيكا قرآنك أمتك حكمنا وعدالة فلي ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن قال به صدق نيكا إرادة قرآنك سدا يري ربو شيغي ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم نيكا ددك أبوية حق قرآنك إذا والقرآنك هنرعنو ورشريعتنا هنبرنو وردينتنا هنكو عمل فلو وردينتنا هنكو دقنو وردينتنا أمدا هنبرنو وردينتا ددك هادقيسا قرآنك ددبك هادق دد ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم نيكا ددك قرآنك حقيسا أبوية طريق مستقيم كقول عيبا أيو نبي صلى الله عليه وسلم marka quraanka ilaahay na siiyay ummadii quraanka ilaahay naga dhigay naka nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam oo keligii meel fadhiyo jibriil ag taagan yahay ayuu nabigu ka maqlay xagga samada shanqad sawt markaasuu argagaxay jibriil buu nabigu weydiiyey alayhi salaatu wasalaam jibriil baa ku yidhi albaab samadu ay leedahay maanta la furay maanta ka horna albaabka lama furin samada malag baa ka soo daadegay maanta malagaasi maanta ka horna adduunyada muusan iman albaabkana maanta la furay malagaana maanta adduunka yimiday malagii baa nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu yidhi abshir binuurayni uutiitahuma yaa muxamed laba nuur baan kuu sidaayo ilaahay igu kaa soo dhiibay bishaaraysa baa lagu yidhi imisa nuur laba nuur لم يؤتهما نبي قبلك أذيك هرتا النبي لبدا نور إلهي وسيء ونصيب يشين مجرم بلغو يري خواتم سورة البقرة وسورة الفاتحة لبدا عدود البقرة وقدم بيسا أما سورة البقرة أواخر كذا هي سورة الفاتحة واللبا آيات واللبا إلهي والنبي محمد وكسيي خزائنت عرشك هو السيدة الله إنت الله فريبا النبي قال له قصة صاري قرآن كريم كي ملائكته أي صودان آيا لقد دبكيني بأن مرقاسا بيت العز لدقي ملك آيا سقارة إنتو النبي محمد وقيمي دي لبدا أوكيني أو كله أبشر بنورين أوتيتهما بشاريسو لبا نور با إلهي ugu ka soo dhibo adiga lagu siiyay adiga horta nabi nasiib u yeeshay in la siiyana ma jirin waa labadee khawaatim suurat al-baqara iyo suurat al-fatiha weeyaan xaraf kamida ilaahay baahidaada xaraf kamida ilaahay kuma weydiisatid khayr adduunyo khayr aakhira waxa doonaysid illa ilaahay waa ku aqbala ducada waa lagu siiyaba lagu yiri ku ducayso باهي ملهن باهي ملهن ملهن يا باهي وان بوحنا سوما ها بده باهي دالو waa kana ku ducayso had meel kale indhaha ugu taagay sanadkiiba dhowr kun baa jaamacada ka soo baxaysa diblomkan shahaadadan aad gosha lagu soo galiyay ilaahay ku dhaweyn mayso ogow ilaahay waxa ilaahay aad ugu dhawaanayso waa quraankaas waxa xaajadaada lagugu daboolay waa quraankaas waxa adduunyadaada iyo aakhiradaada kugu hagaagayso waa quraanka raac quraanku dad buu ka dhigay dad xaraf kamida baa nabiga lagu yiri ilaahay tabaaraka wa taala kuma baridid oo baahidaada ilaahay uguma sheegatid ilaa he wixii khayr adduunyo iyo khayr aakhiro aad ilaahay weydiisateed ku alla baraday labada xuruuftooda xaraf kamid aad ilaahay ku barido ilaahay ducada waa ka aqbal waa lagu siima nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wa sallam
balaayaa soo socota ku ducayso suuradda faatixada ilaahay ku bari noloshibaa cidhiidhi kugu noqotay suuraddaa ku bari ilaahay ku ducayso muraad baad leedahay ku ducayso awaakhira suurati albaqara ilaahay ku weydiisa baahidaada albaabka ilaahay garaac ha quusan iminka dadka zamankan quus baa dishaba waan quusanaaba wali intaa hawsanaan tukanayey waxba iima biirayaan way kuu biirayaan ducadaad ducaysatid saddexun bay ducadu mid u dhacdaa imaa balaayo kugu soo socotay in lagaaga dabaalo lagaaga leexiyo imaa in adduunyadan wixii allah aad weydiisatay ilaahay hadda ku siiyo imaa in aakhiro keed lagugu dhigo aakhiro lagugu dhigo dib lagugu dhigo tan qur-aankeenaan markaa dib ugu noqonaynaa insha allah dhahda insha allah dhahda qur-aankeenaan baranaynaa qur-aankan tadabbur iyo tafakur ku akhrisanaynaa saxaabada rasuulka radia allahu canhum qur-aankaas ayay ku raaceen imaam bay ka dhigteen qur-aanka imaam dhaqan hadday tahay cibaado hadday tahay akhlaaq hadday tahay tarbiyadda awlaadda hadday tahay sida mujtamaca loola dhaqmaya hadday tahay sida qoys loola dhaqmaya hadday tahay qur-aankaabay raaceen iyo axaadiista nabigeena sal alla alay wasalam yatadabbaruun cumar bnu khadaab allah raalli ka noqdo aad buu qur-aanka u fiirsan jiray moogtahay masjidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam buu habeen soo galay saacadihii dambe amiir isagoo ah nin dhadhow mas-uulah oo ummaddan ka mas-uula oo cibaadadii faraa'idda ahayd intuu meel saaray weliba ku dadaalaya inuu nawaafishana uu la yimaado habeenkii wuxuu yidhi habeenkii haddaan seexdana xaqii ilaahay igu lahaa baan dayacayaa maalinkii haddaan seexdana xaqii ummadda igu lahayd baan dayacayaa buu yidhi waa markii la arkay cumar bnu khadaab oo masjidka nebiga markuu fadhiistaba hurduu dhacaa hurdada ayaa ridaysa yaa amiir almu'miniin waa daashee seexa baa lagu yidhi markaasuu yidhi habeenkii haddaan seexdo xaqii ummadda igu lahayd baan xaqii ilaahay igu lahaa baan dayacayaa leanna mu'minku habeenkii ilaahay buu la munaajoodaa ilaahay buu baryaa maalinkii haddaan seexdana buu yidhi xaqay ummadda igu lahayd baan dayacay buu yidhi mas-uul ilaa hada alxad cibaadadiisa habeenkii ilaalshanaya buu ahaa habeen habeenada ka mid uu soo galay masaajidkii nabigeena sal alla alay wasalam wuxuu arkay yar shaabba oo qiyaamuleylkii u taagan oo qur-aanka kor u qaadaya uu istaagay uu dhageystay watuur وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى لقى قال إن عذاب ربك لواقع إلهي ودارنا كورن دارتي مركي دعبي وحي إلهي لي إن عذاب ربك لواقع aayadda cumar markuu maqlay baa la yidhi dhulku ku dhacay waa la qaaday aqalkaa la geeyey 20 maalmood muddo ku dhow buu xanuunsanaa baa la yidhi xanuunka sababta uu la xanuunsadana lagama warqabine aayaddan qur-aanka ayaa qalbigiisa taabatay baa la yidhi waa cumar alfaaruuq abi bakrin sidiiq radia allahu canhu ayuu nebigu u yimid isagoo ooyaya maalin yaa abaabakar maanta maxaad loo ooyeysaa ii sheeg markaasuu yihi nebi allow suuraddana kugu soo degtay labada aayadood ee u dambaysaa iga oynaysa buu yidhi waxba kamay tegin labada aayadood faman yacmal mihqaala daratin khayra yarahu waman yacmal mihqaala daratin sharan yarahu mihqaala dara waa wax isha bini aadamku qabato waxa ugu yaray aragto oo khayra intaa qofkii sameeya
maalinka qiyaamaha abaalka uu heli doonaa baa ilaahay yidhi intaa in la egoo dembi iyo sharo qofka sameeyana aakhiradu uu heli doonaa maaragtaane abaalkiisa uu heli doonaa abibakr sidiiq waxa uu leeyahay labadan aayadood ee suuradda ugu dambaysa waxba kamay tegin ba nebi allow seen markaa ku badbaadaynaa markaa buu nebigu uhi yaa ababakar waladii nafsu muxamadin biyadihi ilaahay baan ku dhaartee buu rasuulku yidhi allaha nafta muxamadi ay gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartee low lam tudnibuu haddii dembiba uusan iniga dhacaynin oo dad dembi ka dhacayo aanad ahaynba ladahaba allaahu bikum ilaahay intuu adduunyada inaga kaxeeyo ini qaado ayaa ilaahay waxa uu keeni lahaa duul wuxuu ilaahay keeni lahaa arlada dusheeda dembi intuu dembi ka dhaco oo ay dembi sameeyaan ilaahay dembi dhaaf ay weydiistaan oo ilaahay dembigooga uu dhaafo kuwaasaa ilaahay keenan lahaa buu rasuulku ku yidhi cabsidii markay ka badatay ayaa nebigu xadiistan ku akhrinayaa bal siday marna ay naxariista ilaahay aysan uga quusan waxay adduunyada dusheeda ka arkaan o dhan aakhiraday ka dhex arkayeen iyagu taabiciintii buu ahaa silata ibn ushaym raxmat ullaahi calayh nin wuxuu ahaa aad da'diisu intay weynaatay ictizaal buu sameeyey ictizaal waa maxay yani mujtamacii buu ka dhex baxay cibaaduu markaa u tafaruqay maalinkiina siyaam habeenkiina qiyaam maalinkiina soom habeenkiina salaatuleyl markaa nina adeer u ahbaa u yimid oo ku yidhi inantaydii baan ku siiyey waana kuu dhisaynaa waa la soo qaaday magaaladii baa la keenay gabadhii baa loo meheriyey markaasay ninka waa nin caabidu cibaado badan dharna ma haysto markaasaa lagu yidhi qolka xamaamkaa galoo maydho baa lagu yidhi dharkaa jadiidkana soo xidho markaasuu soo maydhay dharkiina uu soo xidhay cadarna uu soo marsaday gabadhii markaa caroosadii baa la yidhi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa tae orodoo halkaa ku hoya baa lagu yidhi salafku habeenka ugu horeysa ee leylatu zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo qolka caroosaddu ay fadhidana markuu cariisku ugu galo inuu assalaamu calaykum markuu yidhaahdo inuu 2 rakaco uu tujiyo iyada inagu sidaa ma samaynaa yaa haleelaba qola kaamera wadata ayna haysatabe soo maahinde laa ilaaha illa allah bataan arkayna dhalinyar halkaa buuraha hoostooda taaganoo yaa leyti war zayigii islaamka un balmaan qaadanaa maxaa kuu diiday zayigii islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa kuu diiday sunnatu caada xataa caadadeennii waxaad mooddaa inay maalinba maalinta ka dambayso ay ka sii dheeraanayaan dhaqanka islaamka leylatu zafaaf saxaabada rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa 2 rakacay iyuu ninku reerkiisa uu tujin jiray waxay ka dhigan tahay maanta laga bilaabaa mas-uuliyaddii aabbaha iyo hooyada saarnayd anaa kala soo wareegay noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada anaa kuugu imaama ana waxaan diyaar u ahay bay ka dhigan tahay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebi maxamed inaanu kugu hogaamiye sida 2 rakaca aad igu daba tukatay haddeetol aniga ii daba joog bay ka dhigan tahay sidaasay ka dhigan tahay le nebigu waa kii lahaa khayru الnisaa man idaa nadarta ilayha saradka waidaa amartaha aطaacadka waidaa gibta canha xafidatka fii nafsiha wamaalaka dumarka ta ugu khayr badan buu nebigu uhi waa tee waa ta marka uu ninkaygu daymoodo ka farxisa buu rasuulku yidhi hadduu la hadlo hadal wanaagsan bay kula hadlaysaa hadduu eegana way ka farxinaysaa wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana
iyaduna way dhowrsoonto way ilaalsan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya uu dhiibtan waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi marka labada ragcadood ee sunnaha gabadha habeenkan la tujinayo waa hadyigii saxaabada waa hadyigii salafka waxay ka dhigan tahay haddeetoola adiga anaa kuu imaama ana taacadda ilaahay iyo taacadda nebi maxamed baa kugu hogaamine sidaa salaada aan imaamka kuugu ahaa maanta laga bilaabaa noloshaada anigaa kuu imaamay daba joogsay ka dhigan tahay hada marka salaada la tujiyo ayaa waxaa sunno ah halkaa fooda in la qabto fooda ducadee lagu akhrinayaa allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat calayha soo mahayn khayra ma jubilat calayh wa acuudu bika min shariha wa shari ma jubilat calayhi waxay ka dhigan tahay waxaa ducada macnaheed waa maxay ilaahow haween gabadhan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeygana waan kaa magan galay sharka aad ku abuurtana waan kaa magan galay halkaa fooda maxaa loo qabanayaa fooda waxaa ku taalla bay culimmadu leeyihiin waa daakirada qofka bini aadanka xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada haddaad kala garan weyda ka waran labada soo khatar ma wamaa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha lidalika ilaahay qur-aanka waa kii lahaa uma radadnaahu asfala saafiliin ila aladiina aamanuu dadka cibaadada ku koray ee salaada ku barbaaray ee masaajidda ku barbaaray ee daacadda ilaahay ku barbaaray maskaxdoodu marna isku daadan maysa baa ilaahay yidhi boqol hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaaba cibaadada boqol hadduu gaadho daadiisu caqligiisu waa taam 150 hadduu gaadho caqligiisu waa taam 200 hadduu gaadho caqligiisu waa taam laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro 60 jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa way shanqadhi qalow birba ka dhashan qadhi ثم رددناه أسفل سافلين بأوتال لذلك هذا كان رأس قبل هالك إلا قبتها السنة مركا نكي لبعض يركع مركو كعي أي دبجوك ستي سي لبعض ركع وجود جرين صلاة دي فجر باللوغو إعدامي إنك أنا كور رمى هذا كان عروسة الله سوه يضمر كوير حلا أيو عروس كل رئيس دا يولي وركوان خير كوغا الله بديه كاسو بحانا سوسا ما هدا ما شاء الله لما ركع عدود وهابين كي يودن صح نقا تابعي صلاة بن أشيم رحمة الله عليه سدو أقول جري يا صلاة دي فجر لوغو يا دامي يدنا وقبر عابدة بهيد وصالحات وسيدي سؤو كلونا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلهي ما قرآن كل شيء نندل يرى عيارني شيخ ويمدو كويري شيخ قبل وناكسن وطبيعات في عن ودين في عن يا الرباية سدان كوي هلا يشيك بكويري مركا شيخي بكويري أذيكو هداد نقطة أدون إلهي أو وناكسن أدون تا إلهي وناكسن إلهي بكو كاني أدو وناكسنو سو قبل وناكسن ما دون يسد ها قبل دين لي الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة سو نبي مورا نولش أدويد وابا راحير راحة يري أدويدنا وحا هليب ونبي قولي نيكا إلهي وكوها قاجية قبر وناكسنو دين لي سو مدونا سيدنا نقول إنا نشا قبر وناكسن ها هذا بعض وانا نقطة أدون إلهي وناكسن مرقا نيكا نين وناكسن بوها إلهي وحوك هنا قبر وناكسنو حابين كيدنا صلاة الليل كي يدنا أحانا أولن أذاك فجر كان عي وكبح يقلك إلى المسجد صباح ذي بهوانك بقوي من دعرو صدي بل ورن وانا اللي وقال لك انه عابد الصوفي وانو جيدين بالضمر مركز سيكو تري صلاة دي انقلي باكا بحني تري هذاك فجر كان سكدهين ليس السلامة صلاة دي انحرني لما دي ركعات هذاك فجر كان نقب حيي تري سقيب الله قبصده مركا قولي لي ورنيكا كان خير الله كسيه حال عروسده حالته ولا عدسده ugu gashay wuxuu innika iga gardaran buu yiri markii u horeysay xamaan baad gelisay oo ugu tiraadeen biyaha kulul ku mayro biyihii kulul dhulka qabooba moogtay biyo kulul baa loo dhigay
biyihii kululaa markaan isku shubay buu yidhi naartii baan xasuustay buu yidhi cadar iyo dhar cusubna waad ii iibiseen oo waad ii geliseen cadarna waad ii mariseen qol waxaad ii geliseen gabadh qurux badan oo la diyaariyeyna ay i dhex taallo qolkaa markaan galayna jannadii baan xasuustay buu yidhi labadii rakaca markaan xidhay buu yidhi jannadii iyo naartii sidaan uga fikirayaa salaaddii fajar loogu eedaamay buu yidhi qulubteenna allah inoo nuuriyo salaadii fajar baa loogu eedaamay tuula leyl wuxuu ku jiray laba ragcadood mar uu aakhirada mar uu janno xasuusto iyo mar uu naar xasuusto tafakur tafakkaruu fi makhluuqaati illaahi soomahin xadiiskii walaa tatafakkaruu fi lkhaaliqi fatahliku buu nebigu yihi sal alla alay slam makhluuqaadka ilaahay eega buu nebigu yidhi daadna ka fikira buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laakiin ilaahay daatadiisa ha ka fikirina haddaad ilaahay ka fikirtaan oo tidhahdaan ilaahay isaga ayaa sameeyey waad halaagsamaysaan buu rasuulku yidhi lanna shaydaankaa ku odhanaya kan ayaa abuuray allah khalqiga ayaa abuuray allah kan kale ayaa abuuray allah marka u dambaysa shaydaanku wuxuu ku odhanayaa ilaahayna isagana ayaa abuuray markaa waxaad tidhahdaan buu nebigu ilaahay ka magan gala shaydaanka waxaad tidhahdaan laa ilaaha ila allah dhahada waxaad akhristaa suuradda ikhlaaska akhrista lidaalika nebigu waa kii lahaa makhluuqaadka ilaahay ka fikira buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laakiin ha ka fikirin ilahay daatadiisa makhluuqa ilahay ka fikir waa maxay ka lixaadka loo dhammaystiray eeg deedna ilaahay xasuuso ka lixaadka laga naaqusay eeg deedna ilaahay xasuuso ka cad eeg deedna ilaahay xasuuso ka madow eeg deedna ilaahay xasuuso ka faqiirka eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka xanuunsan eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka ubadka la siiyey eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka bilaa ubadka laga dhigay eeg deedna ilaahay ku xasuuso khalqigan oo dhan waxaad ka dhex arkaysaa ilaahay aayaadkiisii baad ka dhex arkaysaa ilaahay aayaadkiisii kam min albashar baa ilaahay abuuray qaar baa fuqaraaya qaar baa akhniyaaya qaar baa caafimaad lagu deeqay qaar baa xanuun lagu ibtileeyey qaar baa faqri lagu imtixaamay qaar baa awlaaddii loo hagaajiyey qaar baa awlaaddii laga bixiyey qaar baa waxbarashada loo furay qaar baa waxbarashada lagu adkeeyey qaar baa islaamnimada ilaahay ku galladaystay qaarna gaalnimada ilaahay u qadaro gaalnimay ku dhimanayaan qaar caqligii baa ilaahay siiyey qaarna caqligaa ilaahay ka qaaday qaar lixaadkaa loo dhammaystiray qaarna lixaadkii baa laga naaqusay ma arkaan ma maqlaan ma hadlaan qaar baana socon aqalada u jiifa qaar baa aqoon kastay leeyihiin haddana fuqaraaya qaar baa aqoon aan lahayn haddana ilaahay ka dhiga aqniya iyo maalqabeenno magaaladeennan ma dadka aqoonta la ugu maal badan mise dadka aqoonta aan lahayn ya qaar kuwa ugu lacag badan ma jaamiciyiinta ugu lacag badan mise dadka aan jaamacadda soo dhigan marka jawaabade dadka waxba soo dhigan ba ugu dhaqaalo badan dhalinyaro ardayaan arkay oo markaa bui sheekh jaamacadayna waan dhammaynay shahaadooyinkii waan haysanaa shaqana ma hayno dhalinyaro aada u fikiraya bu ahaa wuxuu hi cilmigaaga la eegi maayo zamankana ciddaa tahay baa la isweydiiyaa buhi marka horeysaba soomaaliya la qabiil baa lagu halaagay markaasaan idhi dibloomkan aqoontaad baratay waa gooni arsaaqaduna gooni shaqo iskuma leh aqoonta baro lama diidan inaad wax barato inaad dhakhtar noqotaa lama diidayo inaad injineer noqotaa lama diidayo inaad maaragtaanay professor aad noqotaa lama diidayo inaad macaadinta arlada sida loola soo baxa aad noo barataa lama diidayo laakiin aqoontuna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqada marka ayaa bixiya waxbarashadaad baranaysid iyo arsaaqadaada cilaaqa kama dhaxaysa ogow habeenkii ilmaha yar
boqoliyo labaatan habeen uu jiray calooshooyadii uu marxaladaha uu marayay uu nebigu sheegay 40 hore buu nebigu yidhi waa nudfax 40 dhaxana buu nebigu yidhi waa calaqa waa xinjir yaroo dhiiga 40 ku xigana buu nebigu yidhi waa waslad yaroo hiliba dana 120 markuu jiro ayaa malaga loo soo dhiibaa ruuxda oo la yidhahdaa ku afuuf habeenkaasa 4 shay ilmaha caloosha gala loo qoro 4 shay arsaaqadiisa habeenkaasa la qori buu nebigu intuu cunayo ajashiisiina habeenkaasa la qori maalintuu dhimanayo labiyo dhidig midkuu ahaanayna habeenkaasa la qori ahla naar iyo ahla janna midkuu yahayna habeenkaaba la qori buu rasuulku yidhi sal allahu alay wasallam ku salli rasuulka arsaaqadaadii habeenkaabaa la qoray intay tahayna ilaahay waa kaa qariyey intaad adduunyada ku noolaanaysa habeenkaabaa la qoray intaad jiraysana waa lagaa qariyey bal ka warrama sidee noloshu ay noqon lahayd haddii ilmo kastoo inoo dhalanaya uu noo dhalan lahaa asaga oo taariikhda uu dhimanayana halkaa ugu qoran tahay see noloshu noqon lahayd bal ka jawaaba oday baa inan ku odhan lahaa adeer dee mabruuk waan maqlay inay wiil aad ku curatee adeer waa mabruuke laakiin 2022 bisha 22 gu dhimanayaaba ku qoran buu maxaa la samayn lahaa bal ka warraba taariikhda dhimashada laga qariyay baa raxmadaba walow 100 sano kadib haddaan lagu qori lahayn inaad dhimanayso oo halkaa kaaga qornaan lahayd walwali walbahaari murug baa kusii dili lahayd laakiin ilaahay waa kariim uu kaa qariyey siduu ajashaada u qariyey ayuu arsaaqadan ilaahay kugu qariyey min maalinta aad dhalatay ilaa aad dhimanaysa wixii adduunyada biyo iyo baad iyo bariis iyo hilib iyo caano iyo hawo aad ku lahayd haddii lagu siin lahaa halkee dhigan lahayd bal sheeg imse bakhaar baad u baahan lahayd ma yeelatee noloshu xarakaad noloshu waxay macaankii dhadhanka ku leedahay ajashiina waa lagaa qariyey arsaaqadiina waa lagu qariyey markaasaa weliba lagu sheego lagaa yidhi arsaaqadaadii iyo aqoontaadu iskuma xidhno sidii ninkii nebiga u yimid ee yidhi 2 nin oo walaale ayay ahaayeen midna farsamo yaqaan buu ahaa midna masjidka nebigu fadhin jiray oo nebigu cilmiga ka reebi jiray calayhi salaatu wassalaam marka kii xirfadlaha ahaa ee magaalada u shaqo tagi jiray ayaa nebiga ku dacweeyey calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku dacweeyey walaalkii yaa rasuulallah de aniga unbaa soo tabcaya buu isaguna halkan masjidka unbuu fadhiyaa wuxuu nebigu ugu jawaabay lacallaka turzaqu bihi buu ka yidhi lacallaka turzaqu bihi waxaa xaqiiqo ah oo dhaba buu nebigu leeyahay in arsaaqadaba ilaahay isaga kugu siinaya fadligiisa tawakulka tala saarashada ilaahay uu tala saartay ictikaafka masjidka uu ku jiro barashada ilaahay diintiisa uu baranayo taqwada masjidka ku soo xeraysay ayaa laga yaabaa arsaaqada in ilaahay kugu fudaydinayo macnaheedu weeyaan sidaas marka aqoonta ma radinayno waan baranaynaa aqoon in wax la bartana ma diidayno laakiin waxaan u baahannahay qofkan wax baranaya inuu marka horeysa u noqdo qof ilaahiisa yaqaana dhakhtar ilaahay yaqaana injineer ilaahay yaqaana taajir ilaahay yaqaana mas-uul ilaahay yaqaana faqiir ilaahay yaqaana caaqil ilaahay yaqaana ogaas ilaahay yaqaana waa inaad noqotaa qof ilaahay yaqaana nin taajira oo ganacsada ayaa jamaaca ku ziyaaratay xafiiskiisii shaashad weyn baa hor taalla xafiis kasta oo shaqaalihiisu ay fadhiyaan kameraba u dul saaran halkaa buu kala socdaa si fiican hadalka u dhagaysta markaasay jamaacaddii kolkay u xadiiseen bay ku yidhahdeen maxay shaashadda inaad kolba mar eegay sideed dadkuna dhex soo socdaan wuxuu ihi waa shaqaalahaygii baan halkaa kala socdaa buu yidhi oo gabdhaaba ku jire maxaad gabdhaha u khaawisi buu yidhi mar markii qaarkood shalmadaaba ka dhacayse wuxuu yidhi si kale oo lagu aaminaa ma jirto
kameraagaa bay ka baqayaan deedna xoolahaygii iyo shaqadeedii baa ii nabadgalaysa buu yidhi ninka dadkaa muxuu ka aaminsan yahay markaa u shaqaynayo oo dhan waa tuug inay way idhacaan kameraaga waxaan u wada duldhigay waa in xoolahaygu ay ii badbaadaan saasuu ka aaminsan yahay soo maha de muxuu ka aaminsan yahay waa tuug qof la aamini karaa ma jirto mid baa mid sidaa ku yidhi dadka maanta wax la aamini karaa maba jira buu yidhi kaad meel u dhiibtaba uu ku dhacayaa buu yidhi ayib shaqaalihiisii qof ka mida ayaa maalin isagana meel lagula kulmo markaasaa lagu yidhi maalin baan sarfiiska kugu soo maray yaad u shaqaysaa shirkaddaa baan ka shaqeeyaa imse sanaa ka shaqaysaa 7 sano lacag muxuu ini siiyaa intaa maalintaad shaqada bilowday ilaa 7 sano lacagtaadu ma intaa unba haa waa intaa oo nima biiriyo sanad kasta wuxuu nagu yidhaahdaa waa nii biirin noomana biiriyo ballan kasta sanad walba ballan buu noo qaadaa ballanna ma ilaaliyo waana beenaale bay yidhahdeen iyo kii shaqaalihii waxay isaga ka aaminsan yihiin waa beenaala ninkaasi isagii iyaka wuxuu ka aaminsan yahay waa tuug haddana ninkii maalin dambaan aragnay bal waranoo ma fiicanto shirkaddii way kacdo waan xidhay buu yidhi maxaad u xidhay wax dad aan aaminaan weynay buu yidhi khalaas dadkii ammaano male buu yidhi waxaa laga yaabaa dadka u shaqaynaya o dhan inay jaamacada ka soo baxeen isagani inuu jaamacad soo dhigtaan laga yaabaa laakiin ammaano qofki inuu yeesho inuu ballan buuxiyo uu noqdo inuu rusheego uu noqdo inuu cadaalad falo uu noqdo inuu dabeecad wanaagsano uu noqdo ma dibloom bay u baahan tahay mise iimaan bay u baahan tahay bal ii sheega iiga jawaaba qofku inuu rusheego noqdo uu ballan buuxiye uu noqdo ballan ilaaliye dabeecad wanaagsane cadaalad sameeye ixsaan sameeye inuu noqdo ma dibloom buu u baahan yahay ma maqasha weli jaamacad la yidhi ninka ka soo baxa wuxuu noqonaya nin ammaano xaafida nin runsheege ah nin ballan buuxiye ah nin cadaalad sameeye ah ma maqasheen ma jirtaa jaamacad caynkaas ma jirto way jirtaa waa jaamacaddii nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam cumar bnu khadaab radia allaahu canhu oo xajka u socda ayaa waxay arkeen nin marka aad u soo socdo faraska aad u soo eryanaya marka cumar bnu khadaab baa eego wuxuu yidhi ninkaasi kolley annaku noo socdaayo joogsada buu yidhi uu joojiyey cumar ciidankii ninkii oo aad u daalan oo aad u naxsan baa markaa cumar soo gaadhay cumar hortiisu ku dhacay cumar baa markaa ku yidhi ma nin cadow eryanayaan oo cabsoonaya ayaa tahay oon ku magan gelinaa mise nin dayn lagu leeyahay oo daynkii bixin kari waayey oo u baahan in la caawiyo ayaa tahay mise nin naf bini aadana soo gooyey oo xaqdarro ku soo dilay baa tahay markaasuu intaa midna mayhi buu yidhi waxaan ka imide buu yidhi basra ayaan ka imide basra waa magaalo ku taal ciraaq abaa muusa alashcari baa halkaa amiir nooga ahaa haye halkaas anoo jooguu dembi iga dhacay buu dembiga kaa dhacay muxuu yahay khamri baan cabbay buu yidhi dabeedna abaa muusa alashcari baa intuu qabtay buu iga jaray buu yidhi xadkuu imariyey haye timihiina uu iga xiiray haye farasna intuu igu qaaday buu magaaladii basre i dhex mariyo wuxuu yidhi ninkaa halla cunina oo halla fadhiisanina oo halla saaxiibina oo ka dheeraada buu yidhi wejigaygiibu iga madoobeeyey buu yidhi markaa naftaydii 3 mid bay iigu sheekaysay inaan sameeyo imaa inaan abaa muusa alashcari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imaa inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabbayaanna aan la cabbo waxay cunayaanna aan la cuno iyakana aan ka mid noqdo imaa inaan adiga kuu imaadood iga qabatid amiirka muuminiinta marka cumar bnu khadaab ayaa yidhi radia allaahu canhu inaad ii timiday ilaahay baa ku waafajiyey buu yidhi inaad gaalo u tagtaa ha yeelin
inaad abaa muusa alashcari isagana intood aad u dhumata aad dishaana ha yeelin mar haddaad aniga isoo gaadhay buu yidhi aniguna arrintaada haddaan shaqo ka qabanaya bu hawsha waan qaban buui warqad buu qoray warqadda nin kale cumar uma dhiibin isagiibuu warqadda ugu dhiibay isagii ku dheh amiir almu'miniina cumar agtiisaan ka socdaa uu ku soo salaamayey waxaad ku tidhaahdaa haddaad amiirkaagii aan ahay warqadday ku qoran tahay oo xaqa aan kugu leehay abaa muusa alashcari oo aad qadarinaysid warqadda ninkaa uu kuu keenay dhegayso qaabil buu ku soo amray uu soo noqday ninkii cumar weliba ninka ma sii dayn faras buu siiyey lacag buu siiyey dhar buu siiyey kolkuu muddo welibana uu hayey ayuu yidhi haddaba imika soco u tag basre ayuu markaa ugu yimid abaa muusa alashcari oo khudbadaynaya markaasuu amiirkii mu'miniinta cumar baa i soo diray uu ku soo salaamayey warqaddaana wuu isoo dhiibay akhrisa buu ka yidhi warqaddii buu akhristay ninka faraskaaga saar magaaladii aad la dhex martay marka hore la dhex mar waxaad ku tidhaahdaa la fadhiista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin uu toobad keenay toobaddu addoonka ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horeen hadal iga dhaco o dhanna waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtaan cafiya anna waan cafiye dheh abaa muusa alashcariyi radia allaahu canhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid uu madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii uu sidaa usoo dhex mariyey waa walaalkiin uu toobad keenay cumar bnu khadaab buu u tegey cumar buu fariintaa inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taa dadnimadu mas-uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya brofesor ilaahay garanaya maalqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya abaa hurayra radia allaahu canhu gaajo daraaddeed buu masjidka nebiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nebigu uu ka baxayuu ku dhici jiray ninka reer miiga ee magaalada madiine ku cusub ayaa intuu isku dultaaga odhan jiray war maad waalan tahay meesha ka kax markaabuu odhan jiray ma waali abaa hurayra wuxuu leey waali maa waxaan la jiifee gaajaan la jiifaa buu yidhi cumar baa ii yimiday markaasaan cumar ku yidhi aayadda qur-aanka halkaa aayadda qur-aanka halkay ku soo degtay cumarow markaasuu abaa hurayra wuxuu yidhi marka cumar aayadda qur-aanka aan weydiinayey garasho la-aanigama yahayn waxay iga ahayd cumar wejigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wejigaaga ku taalla intuu eego ha garto oo ha ku yidhaahdo abaa hurayra gaajaa ku hayse kaale ila soo xeraado ila soo cashee imuu fahmina aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi halka ku soo degtay haddana abubakar baa yimid abubakar waadna bal aayadda iiga jawaab halkay ku soo degtay abubakarna ima garan oo ima fahmina aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi waa abaa hurayra baahi baa haysa 3 maalmood iyo 3 habeen afkiisa cunto ma gelin haddana abibakar iyo cumar inuu baahi u sheegta buu ayuu ka qarsanaya inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtariyey moogta soo maha inte soo maha xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegsheegaaye mashruuc gaalow innakaba naguma socdoba xanuunkaas naguma socdo cuquubo meel kale ku socota haddaad u yeerata ka waran adigu halkii beryihii hore dadku odhan jireen balaayo markay maqlaan meleblayo balaaya ku dhacday ayaa laga alla beri jiro la odhan jiray balaayo baydh iminkana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo baydh xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaabaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi mu'minku balaayo ma sheego mu'minku nicmadda ilaahay buu ka sheekeeyaa wa amaa binicmati rabbika faxadith nicamta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo leh ilaahay baa waxaa oo dhibaato igu sameeyey ayaa iga qabta ayaa ilaahay kaa qaban war ma hay-ad baa ilaahay kaa qaban bal sheeg
mu'minku balaayada ma sheego abaa hurayra gaajadiisii cumar uma sheegin abibakarna uma sheegin uu qarsanayay laakiin wuxuu balsiiro farsamo leh ayuu wajigaaga bal kolkay eegaan ha kaa dareemaan oo ha ku yidhaahdaan abaa hurayrow marka horeba ahlu sufaad ahayde oo magaalada madiina qareen iyo qarabo kumaad lahayne waad gaajootay ibna mari ha ku yidhaahdaan iyakiina may fahmin walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu igu soo baxayba halkaasuu nebigu ka fahmay halkaa buu ka fahmay yaa abaa hurayra kaale caawa aniga ila soo cashee buu ka yidhi kaale ila soo cashee koob caanuu nebigu ugu yimid reerkiisii koob caanaa maxaa yaalla koob caanaa ku yaalla nebi allow yaa abaa hurayra مسكيتي كل نقو أهل الصفية ودن نقو غير عاوة عناه إن العبانة وكوب عناه أبا هريرة النبي محمد هذا الكيس ما أورنكره لكن يبدأ أن كيريبو يري كوب كان عناها أدقوم وكوكو في عناية ميها اللي دي بقى حكو عبادة ستة الله بها بيانه أهل الصفوة والرقات قرني سيدي مسكيت كده جنايو أياك اللفت لوكم مع الميت الوحمعون ده كل النبي بقول كويرو أي مادان فريستان أدو كورنا أبا هريرة عنها قادو سيسي كوه الرئي الله سيه همين لكن النبي محمد هذا الكيس ما يورنين ويري أقل جمرجي فريستان سدي وكب ملايين يمشى ودعدي يا أبا هريرة أبو النبي يقول كوبك عنها قاد نيك أبو هريرة أديب حكنا قادم بقول إلا يسوي كوسو عليه مويانه كوب حنا رجل الله يرنا ورجيه أهل الصفة كي الرياع مركز أديبي وأنا إيه وعنو هالكوجي جو كي كلام أديبي هالكوجي سجاشن تضباطا نسكده مركز النبي يقول يا أبا هريرة يا رئيسك يا رسول الله هذه يعني قاعد فليسو أدوع وأنعب كل علي حدا وأنعب كل علي إلى أن إراد إله حق كل صار بان كل دارته عنها ملء على شيء أي كم مرانو بنان هديت ليقوم هذه من يقول لأن مركز أنا هم بدي بنبي قاتي هم بدي بنبي عليه الصلاة والسلام وحن كودا فقراء دودو باهي ويقبين لكن باهي دودو مشي جرين باهي دودو إيمان كدبولاي إيمان كدبولاي والله وحن باهنا إيمان أمة إن إيمان كالله دسو أمة إن إله الله حرو أمة إن آخرة الله جديو أمة إن دين تودا معانك دين تو أيلا باي لا شيء كان ما أنت أباهنا هي واتاس عاد ما نقولنا مثل عباد ما نقولنا بل خلا دورته يا وديار النقطة داعي عابدة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل دعا إلى الله دعا به الرئيسة قم فأنذر به الرئيسة وعمل صالحا ولا دنبيسي آذان كاه الرئية صلاة دا كحكتا دعوة دا الرئيسة عملك وناكسن با كحكا نبي با دونك إيمانيا رسالة با الله سودي بيا دعوة بو بلابيا دعوة مركو بلابو أيها أمد دين توسو جيسانيسا مركزا مجتمع نرشو دين كموغانيسا لذلك دعوة أساس كدين تين الإسلام كويان دعوة الله هلو أيها أمد دين تجعلان لأن دين تين برتان وأي كو عمل فلان وأي كو دغمان مركزا أمد أي دين تمعان كيغا دمين إن شاء الله هذا دين تدال كيغا وقتينا مالكينا دقالهنا عقلينا عمرينا إن الدين تقشنا صوديار منهن والله دعوة ونحريس دعوة والرحمة أمده مساجد اللوغيرة والرحمة أمده قرآن كاللبرا والرحمة أمده علمي كاللبرا والرحمة أمده مساجد اللوغيرة والرحمة أمده إلهي حقيس اللوغيرة وضدك السدودي ورهدي مقالة أردن وضفوغك لغا وضدقو oo wadooyinka oo dhan la nooga dhigo muraayado oo wadanka oo dhan qof aan shaqeyn la helo oo dadka oo dhan wada shaqeeyaan laakiin dadkii ay been ku macaamiloodaan oo khiyaanadii ay badato oo amaanadii ay yaraato oo qiibadii ay badato oo dulmigii uu bato oo zinadii ay badato oo fisqigii uu bato oo fujuurkii uu bato maan hore marnay mise waan dib u dhacnay bal iga jawaaba daarihii baan dhisnay wadooyinkii baan dhisnay mashaariic horumarneed baan samaynay
jaamacadihii baa batay, khariijiintii baa badatay, jaamiciyiintii baa batay, hoteeladii baa batay, warshadihii baa batay, laakiin dadkii amaano male, run sheeg maaha, amaano male, run ma sheegayaan, ballan ma ilaalinayaan, cadaalad ma samaynayaan, ixsaan ma samaynayaan, isma jeclo, isku damqani maayaan. maan horu marnay mise waan hoos u dhacnay? iliga jawaaba, waan hoos u dhacnay. idan hadday aqaladeennii baadiyaha ay yihiin, oon ari iyo geel aan dhaqanayno, oon beeraha falanayno, laakiin dadku ay yihiin dad ilaahay yaqaana, dad ammaano leh, dad khayr badan, dad run sheegayaala, dad cadaaladda ilaalinaya, dad isku naxariisanaya, dad isku damqanaya, dad xumaanta ka dhiidhinaya, dad wanaagga jecel oo xumaanta necab hadday yihiin, waan horow marnay. ogaada, horumarku maaha dhiska horow mara, horumarku waa bini aadamka horow mara weeyaan. diintu markaa dadkay dhisaysaa, daacigu wuxuu ka shaqaynayaa dib u dhiskii dadka. ninka madaxa markay doorasho soo dhowaato, madaxdu markay doorashada galayaan, nin kastoo siyaasi wuxuu yidhaahdaa wadooyinkan samaynaya, mashaariic horumarneed baan samaynaya, tacliintaan bilaash ka dhigaya, tacliintaan kor u qaadaya, dhakhtaradaan badinaya, caafimaadkaan bilaash ka dhigaya, warshado ayaan samaynaya. nin madaxa oo odhan kara dadkaan hagaajinaya ma maqasheen? iga jawaaba, war ma maqasheen? nin madaxweynaha oo yidhi dadka siday ku hagaagi lahaayeen baan ka shaqaynaya, ma dhacda inuu yidhahdo? may. waayo fannigan dadka lagu hagaajinayo fanniga madaxda maaha, waa fanniga culammada weeyaan, waa fanniga ducaadda weeyaan, waana taan u baahannahay maanta, waa ta aan laanahay weeyaan. halkaa xadiis baan ku soo khatimaya, alaa ukhbirukum bikhayrikum min sharikum, qaaluu balaa ya rasuula allah, qaala khayrukum man yurja khayruhu wa yu'manu sharuhu wa sharukum man laa yurja khayruhu walaa yu'manu sharuhu. maynii sheegaa buu nebigu yidhi kiinayniigu khayr badan iyo kiinayniigu shar badan. markaasay saxaabadu yidhahdeen ha. markaa buu nebigu yidhi kiinayniigu khayr badan waa ninka khayrkiisa la rajeeyo, sharkiisana ummaddu ay ka nabad gasho. khayrkiisa loo rajeeyaa, ilmahaagiibaa maalan ilmo yar wax ku dhiftay, markaasaa tiri war ilmahaygiibaa maanta ilmo yaroo kala cawiray, oo ilmaha ayaa dhalay, odaygii hebel baa dhalay. markaas odayga ahaa, war odaygaas waa oday helulkhayra, waa oday miskiina, waa oday macquul ah, waa oday ixsaan badan, marna isfahmi waayi maysaan, waa nin la isfahmo, waa nin cafis badan. anigay beri arrinna dhex marto, arrintii si khayr loo wanaagsan buu ku dhameeyey. war ninkaa nin shar laga filanaya maahine khayr baa laga filanaya, inoo geeya, kaasay nigu khayr badan buu nebigu yidhi. ka kalena waa kae khayrkiisa aanan la rajayn. ma ilmahaagiibaa ilmihiisa wax gaadhsiiyey? haa, ilaahay baad leedahay. kaabay arrini kaa gashay miyaa? haa, ilaahay waxa kaa siiyo, ilaahay baad adiguna leedahay. war ii raaca oo bal ninkana dhexdhexaadi, laysma fahmaba. kaas waa nin tiisa un ay la quman tahay, garna ma gasho, garna kama baxdo, sharkiisana ilaahay baan ka magan gallay. waa miaal yani xadiiskaasi, eeg, waa xadiis xasan ah. dadka khayrka badan le nebigu sidaasuu sheegay, iyo dadka sharka badan leh. marka haddaan diinta ka shaqayno, dadka khayrka badan leh, ee khayrka jecel, ee ixsaanka badan, ee dulqaadka badan, ee wanaagga jecel, ee cafiska badan ayaa mujtamaceenna ku badanaya. haddaan diinta iyo dacwadda ka shaqayni weyno, iimaankaa hoos u dhaadhacaya, taqwadaa yaraan, alla ka baqaa yaraan, deedna markaa waxaa kor maraya dadkii khayrka badnaa, waxaa ka badanaya dadke kafadda miisaanka. taariku salaaga xaggan haddii la saaro maanta iyo dadka salaada ilaaliya iyo ma badan, war kafadda tee culus, taariku salaaga cuslaanaya soo maa? kafadda dadka khayrka badan leh iyo dadka sharka badan leh maanta mujtamaceen ayaa ku badan meel walba caalamka. waxa maxaa keenay? waa ka shaqayn la'aanta aan diinta ka shaqayni weynay ayaa dadnimadii hoos u dhacaysaa, hoos
adduunyadiina kor baa u socotaa maanta marka ilaahay kuwa diinta ilaahay u dadaala ee barta ee ku camal fala ee ka shaqeeya ee ilaahay khayr ugu khatimo allah inaga yeelo soo diyaar ma nihin insha allah dembigeena allah ha dhaafo dembiga waalidiinteena allah ha dhaafo diinta allah inoo macaaneeyo maralkeena allah ha shaafiyo mowtaadkeena allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo dad badan oo walaalaheen oo muslimiina ayaa ducadoon ah oo muraado leh mid walba muraadkiisa oo macsiyo lahayn ilaahay gacanta midig ha ka siiyo dad badan baa xanuun ka cabanayo meel walba nooga soo duceeya leh wixii xanuunsan caafimaad sariic allah ha siiyo wixii kurbasana kurbada allah ha ka faydo amni iimaankana allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan muwaafiqiin midnimana allah ha siiyo sala allahu calaa sayidina muxamed